maantadan hadda aniga aan joogno waxaad arkaysaa madaxweynihii Soomaaliya ayaa loo leeyahay oo madaxweynaha Soomaaliya kaasoo leh aniga horta madaxweyne walba waa qaanin waxaan rabaa inuu u diri lahaa waqti gaar ah qaas aan u diri lahaa aan tusaayo waxa maartay inaan la qaybsano walaalaheena reer hiiraan reer beledweyne reer jowhar reer cadal inta webiga saamayso meeshaan aniga u taagannahay in aan ka naxnay ka qiiroonay inaan iska jiri lahaya baaqaas oo kale jiraan weylana walaalayaalo بسم الله وكفى سلام الله عليكم مدن يال iyo marwooyin dacalada adduunka meel walbo aad inaga daawanaysaan waxaad inagala socotaan warbaahinta ku bahawday Southern Media Corporation oo mar walba aad ka heshaan wararka xaqiiqada ah iyo xaaladaha kulul maanta mar kale waxa marti inoo ah doctor ka culus wax dibnaha un laga sheegto darajadiisii Dr. Cabdullaahi Ibrahim Xasan Amaandhoorey oo xaaladaha marka ay kulul yihiin runta idinkaga sheega waxaan jecelahay inaan doctorka ku soo dhaweeyo stuudiyaha wareega ee Southern Media Corporation isla markaasna haatan uu bari taageerayo wariye sare Xasanos doctorka ku soo dhawow Southern Media Corporation Ustaad Aadan aad iyo aad ayaa u mahadsan tahay waana ku dhawahay insha Allah doctor waxa jira xaaladaha ugu dambeeyay ee Soomaaliya adoo igaga war badan in ma arkayse dalkii fatahaada ay ku habsadeen gobolada Soomaaliya inta badan kuwa tilmaaman hatta sida Hiiraan iyo Shabeellooyinka oo kale macnaheedu roobabkii waxay dhaliyeen daadad khasaaro badan geysanaya haatan waxaanu arkaynaa in masaskii iyo daadadkii oo wada socda dadku ay dhibaato ku hayaan ugu yaraan 40,000 oo ruux ayaa hadda ka qaxday magaalada Beledweyne oo xarunta gobolka Hiiraan ah Hirshabeelle taa cagsigeedana waxaan ognahay in Soomaaliya dawlad ay ka jirto madaxweynihii ugu weynaa ee dawladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaad og tahay in arintaasi uu ka aamusay intii uu kaalmayn lahaa dadkii oo laashash intuu qaato iyo doonyo uu sawir u noqon lahaa dadkii gargaaridooda waxaad arkaysaa in ciyaaro lagu dheelaayo Burundi dawladdiisu ay xoogga saartay ma xuma ciyaaro in la taageero marka intaasoo qarashoo ku baxaya ciyaaraha isagii nafsadiisoo hadda u xirxirtay ciyaarta inuu aado laakiin uu xishooday hadda uu iska macnaheedu xamar iska joogo maxaad ka leedahay qayr mas'uuliyadnimadaasi uu madaxweynaha ku dhaqaaqay iyo dawladdiisiiba ma arkayse iyo fataadaha jira Ustaad Aadan marka ugu horeysa waa ku salaamay marka labaad haddana waa salaaman tahay marka xigta waxay tahay waxaan leeyahay Soomaali oo dhan masiibada ku habsatay Soomaali meel walba ay joogto dhibaatooyinka ku habsaday sida maalan colaadaha argagaxa abaaraha daadadka ilaahay marka hore ka qaado Soomaali meel walba ay joogaan waa u duceynayaa wadan san oo nabad ah oo saliim ah oo dawlad caadil leh ilaahay in uu ka dhigo ayaan u rajaynayaa tan kale waxaan leeyahay daadadkii ku yimid dadka diga agagaarka ama dhinacyaha webiga loo yaqaano Shabeelle oo fatahaad ku dhuftay oo roobabkii da'ay awgood oo dad fara badan ay ku barakaceen waxaan leeyahay masiibadii iyo dhibaatadii ku habsatay ilaahay ha ka qaado ayaan leeyahay ilaahay ha u gargaaro ayaan leeyahay waa dad Soomaaliyeed oo dhibtoon maantadan aan joogno sida noogu maqaal ah waxa qaxay intaasi oo 100,000 ayaa ka qaxay meelihii ayaga ay deganaayeen laga soo bilaabo magaalada Beledweyne ama agagaarka Beledweyne ilaa laga gaaro maalan Jowhar webiga Shabeelle dhamaantooda way saameeyeen daadadkaasi dad badan ayaa ku nool hadda duleedka magaalada Beledweyne ama magaalada Jowhar ama magaalada Mahday u baahan gargaar aad iyo aad u xoog badan marka qof walba oo Soomaali ah ama hay'adaha gudaha ka shaqeeya ee gargaarka ah ama hay'adaha caalamiga ah dawliga ah waxaan ugu baaqayaa in laga wada qayb qaato gurmadka loo gurmanayo dadkaas ku dhuftay daadadka ee Soomaaliyeed tan kale istaad waxaan ku sheegayaa maalan
waxaa jira wax la yiraahdo public service wax la yiraahdo ayaa jiro ama af carabiga loogu yeero khadmaatu dawliya la yiraahdo macnaheedu af Soomaaliya haddaan ku sii fasirno waxay noqonaysaa adeega bulshada ayay noqonaysaa adeega bulshada runtii hadda markaa aragtid wadamadan hadda annaga aan ku noolnahay waa laga shaqeeyay mesela waxaa ka daa mararka qaar baraf xoog badan ka da'o mararka qaar waxa ku dhufto dabaylo sida mesela America oo kale dabaylo ku dhufta iyo roobab iswato oo waa taqaana hurricane iyo Aaron iyo waa badan yihiin dabaylahaas ku dhufto hanti iyo dad badanna way galaaftaan oo intaas milyan way ku qasaartaa intaas oo nafna way ku qasaartaa markaas oo kale wadanka waxa la geliyaa xaalad degdeg ah ayaa la geliyaa waa loo gurmadaa waxaad arkaysaa madaxweynihii wadankaas mesela America aado ama dawlad kale ha ahaadaan in ay hawlihii ayaga ay u haayeen dawladda caadiga oo dawladda dhexe u haayaan inay meel iska dhigaan ayaa waxay aadaan sidii ay ugu gargaari lahaayeen ama isu garab istaagi lahaayeen dadkooda walaalaha ah ee ku dhibtoon ama ku dhibaataysan duruufna ku hayso daadadkaas iyo masiibooyinkaas marka maantadan hadda anaga aan joogno waxaad arkaysaa madaxweynihii Soomaaliya ayaa lagu leeyahay oo madaxweynaha Soomaaliya kaas oo ani horta madaxweyne ma buu aqaani waxaan u aqaanaa nin maxaa la yiraahdo iska one man show ah oo show off ayaan u aqaanaa weligay madaxweyne umana aqoonsanayo ninka la yiraahdo Farmaajo maadaama uu yahay khayrul mas'uul horaan u sheegay inuu khayrul mas'uul uu yahay sababtu waxay tahay waxa abaaro ku dhuftay Soomaaliya abaartii siman la dhihi jiray ayaa ku dhufatay hal maalin intuu istaagay ama aaday meelaha dadka abaarta ay ku saameysay ama gargaar meelaha looga baahan yahay isagoo isgarab istaagay lama arkin waxa ku dhuftay gobolada Koonfureed oo khaasatan Bay iyo Boqol dad fara badan ay xoolihii ka ilaaday abaarta darteeda oo baaba'ay oo soo barkacay duleedka magaalada Muqdisho Baydhabo ama Muqdisho ama degmooyinka qaar waxa ku nool kumaan oo Soomaali ah wali afkiisa lagama haayo ama weligiis gargaar uma fidin wali intuu naxariis taas gashay xataa meelaha dadka ay ku dhibtooyin weligiis ma tagin Erdogan la yiraahdo waa maqashay madaxweynaha Turkiga ah hal mar uu yimid Soomaaliya toos wuxuu u tagay meelaha gargaarka looga baahnaa isagoo oyna isagii xaaskiisa gacanta dhabta ku hay wuxuu hal idilo maanta nafteedan hor hal idilo waa inaan soo arkaa meesha lagu dhibtooyahay ayuu yiri kii u dhashay dadka oo dhiigga Soomaaliyeed watay oo haragga Soomaaliyeed watay oo diinta Soomaaliyeed ama diinta Islaamka watay oo madaxweyne Soomaaliya isagoo u damqanaya shacabka Soomaaliyeed lama arkin waliba horan waa u sheegnay annaga haddaan nahay mesela Soomaali waa Soomaali laakiin dhibkii iyo dhibaatooyinkii ay geysteen dadka isaga uu ka dhashay oo baaba iyo xasuuq iyo barakicin u geystay gobolada Koonfureed ilaa iyo haddana kamana hadlin magdhowna kama bixi marka ninka adiga aad leedahay waa madaxweynena ma noqon karo madaxweynena ma ahan waa khayrul mas'uul maanta lagu sheegay waxa waa maartay meesha saas loogu baabaayo oo lagu beledweyne ilaa iyo beledweyne kaliya ma ahan webiga Shabeelle intuu maray jiidaasi oo dhan beledweyne waa la arkaa laakiin meel aan la arkin oo aflaan aan laga soo dubin oo sawir aan laga soo qaadin ayaa jiro fatahaadii waxay dadku u keentay biyihii oo wasaqaysan dadka biyihii ma cabi karaan qaar ba hadda koleero ka qaaday oo cudur shuban biyoodka loo yaqaan dadkii waxay cabaan ma lahan biyihii waa wasaqaysan yihiin dadkii waa gaajaysan yihiin shelter ma haystaan meel ay huwadaan ma haystaan marka nin aan ka diirnaxaynin oo u jaxanjaxaynin oo focuska saaray in hotelka ugu qaalisan magaalada waxa way maartay wadamadaas East Africa ugu qaalisan la qiyaasay in kiradiisa kaliya habeenkii lagu seexanay ay tahay waxaa noo soo sheegay habeenkii kaliya isaga iyo wafdiga uu wato habeenkii kaliya in lagu seexdo 74,000 oo dollarka Mareykanka ah waa hal habeen kaliya hadda intay cunayaan ee qarashka diyaaradahan waa ka sii badan yihiin intaas kaliya hal habeen 74,000 oo dollar hal habeen hotelkii lagu koreyn lahaa meeqo qof oo Soomaali ah oo barkacyaal ay u noqon kartaa shelter hooy u noqon kartaa oo daawo u noqon kartaa oo quud u noqon kartaa iyo sahay u noqon kartaa marka meesha waxa ka cad public service iska dhaafe naxdin ma jirto ninkan waa one man show oo sanadkii isaga uu hayay kaliya Soomaali fara badan baabad one man show kaliya inuu yahay oo qabiilistan uu yahay waxaad arkaysaa
ونينكي وحوي مارتي مسيبوين كماش كدعي ما أوصل بوقن وحو بوقي waxa lagu leeyahay waxa maartay boqorkii reer hibil ayaa la yiri waxa maartay meeshaas lagu caleemo saaraya meeshii uu deero u qaatay waxa boqorkii nin boqor ah oo waxa maartay 1500 oo kiiloomitir muqdisho u jirto ayuu boqorkaas inuu soo salaamo in caano lagu shubo u tag intaas qarash ku bixiyay war meeqa boqor oo ama isima ah ayaa muqdisho hareerada lagu caleemo saaray imisa boqor ayaa waxa maartay lagu caleemo saaray maxaa la yiraahdaa goboladan koonfureed ama ugaasi ama malaaqiya weligiis isagoo u hambaliyay malaaq koonfur galbeed weli lama arkin malaaq 1500 oo kiiloomitir u jirto muqdisho inuu u hambaliyay weli diyaarad u qaatana marka ninkaas waa nin qabiilista ah waa nin danaysta ah waa show off kaliya ayuu u joogaa meesha laakiin he is wax matare waa maxtare oo ibr ah wax su'aasha labaad ee doctore aan ku weydiinayo dadweynaha isla dhex marayaan waxay tahay haatan ciyaarta markay ka furantay Burundi waxa la yiri telefoon ayuu xamar ka diray uu u hambaliyay marka ma arkaysa fookankaba waa hiila la yiri dadkan fatahaadaha ay ku dhufteen gobolka Shabeellaha Hoose iyo Hiiraan iyo webiga Shabeelle meelaha uu marayo xitaa kaalmo iskaba dhaafay inuu siiyo telefoon xataa inuu kala hadlo oo idaacadaha uu soo istaago sidii awalba beentiisi lagu yaqaanay sidii dadka sheegayaan muxuu u kari waayay baa isleedahay hadiise hadda roobabkan ama daadadkan meelaha ay ku dhufteen ay noqon lahayd degmada uu ka soo jeedo sida caabud waaq oo kale ma kula tahay inuu aamusnaan lahaa farmaajo waa asibtay istaad aadan haddaad asibtay that is the point xitaa iska dhaafe daadadkan caabud waaq iska dhaafe daadadkan hadday ku dhufan lahaayeen isku shuban iyo eyl hadday ku dhufan lahaayeen waxaan hubaa in uu u diri lahaa wafdi gaar ah qaas aan u diri lahaa intaasi oo diyaaradoodna inuu u diri lahaa ayaa cad marka ninkan waa qabiilistan buu ku iriba waxa baaba'ay waxay yihiin kuwii Cabdullaahi Yuusuf shali dhihi jiray badan ku shubayna kuwii u dhihi jiray waa kuwaas kuwa meesha ku baaba'ay laakiin waa dad Soomaaliyeed maanta waxa meeshan aniga isoo istaajiyay oo aan u istaaganahay waliba webiga agtiisa aan tusaayo waxa maartay inaan la qaybsano walaalaheeni reer Hiiraan reer Beledweyne reer Jowhar reer Cadale inta webiga saameeyay waxaan meeshan anaga u taaganahay in aan ka naxnay ka qiiroonay waliba xanuunka iyo gaajada iyo cudurka ku dhacay dadkaas walaalaheena reer Beledweyne ayaan darteeda maanta aan u soo istaagnay maanta meeshan anagoo ku hadlayno magaca qurbo joogta waliba hadda way ka gudubtay arinta koonfur galbeed way ka gudubtay anagoo ku hadlayno magaca qurbo joogta Soomaaliyeed waxaan hiil iyo hoo la garab taagannahay dadweynaha ku dhibaataysan ama ka soo barakacay fatahaada webiga Shabeelle ee ku nool duleedka magaalada Beledweyne sida janta ku indishay oo kale oo cudurrada iyo hooy la'aanta iyo gaajada ku haysta meesha ayaan xanuunkooda ayuu nahayaa marka waxaan leenahay Soomaaliyeey meel walba idinka aad joogtaan runtii waa arkaa Soomaalinimada waa muujiseen Soomaalinimada la sheegayna waa taas meel walba oo lagu dhibtoon yahay ha ahaato Hargeysa ha ahaato Jabuuti ha ahaato Jigjiga ha ahaato Baydhabo ha ahaato Kismaayo ha ahaato Boosaaso meel walba qof walba Soomaali ku nool yahay inta caalamka ku nool iyo inta gudaha ku nool Soomaalida dhibaatadeeda waa in aan ka wada damqanaa Soomaaliyan wada nahay inta kale waa been Soomaaliya wada nahay dad walaalaan nahay waa inaan isu gurmanaa saasan dhihi lahaa istaado doctore ugu dambeyntii qodobkan ma arkaysa fariimaha hadda haatan computerka aan iga soo hormuuqda iga imaanaya ama nooga imaanaya dadweynuhu waxay isweydiinayaan madaxweyne farmaajo sida aad ka dhawaajisay ma arkaysa waa nin cuqdadaysan oo ma arkaysa qabyaaladista ah oo go'go'ay sida awgeed waxay leeyihiin haddii maanta ma arkaysa uu ku fiirsanayo dadkan fatahaada ku dhufatay waxay tusaale u tahay ama la macno tahay in madaxweyne farmaajo uu cuqdad ka qabo isagoo macnaheedu si hoos ugu doodaya in 1990kii marka Muqdisho ma arkaysa dawladdii in adeerkii Maxamed Siyaad Bare ay ka qaxaysay in ma arkaysa lagu dhibaateeyay dadkooda min Hargeysa min Togdheer min Garowe min Mudug min Galkacyo min Hiiraan min Baydhabo min Kismaayo min ilaa iyo ma arkaysa Bu'aale Kismaayo ilaa iyo Bakool marka macnaheedu dadkan inay dhamaadaan haddii ay roobab u yimaadeen ma arkaysa fatahaad ku soo jabsadeenna waa wuxuu ku faraxsan yahay bay dadka qaar leeyihiin ma arkaysa villada qaarkood fadhiya ee aanan u dhalan qabiilka farmaajo u dhashay arintaasi maxaad ka leedahay horta waxa mucjiso ah ku sheegay istaado
ninka intii ka horreysay isaga oo burburkii kadib intii madaxweyneyaal soo martay waxay iska deganaan jireen guryaha ayaga ay degan yihiin ee dawliga villa Soomaaliya deganaan jireen صح dad cuqdad qaba ma ahayn ayagoo og wadanka in dhibaato iyo fowdo ay ka jirto ayagoo og ayaadan meesha seexan jireen cuqdada aad sheegaysid in uu qabo waxa ku fahmaysaa hal usbuuc ma uusan seexin villada kaligeed usbuuci 4 maalmood wuxuu u hoydaa wasaaradda gaashaandhigga oo ku taala duleedka magaalada Muqdisho marka ugu horeyso iskuma aamino dadweynahan koonfurta iskuma aamino marka labaad dad fara badan oo Soomaaliya sida ay leeyihiin wuxuu rabaabu wuxuu ku riyoonayaa inqilaab oo aan suurtoobaynin oo dalkiiba inuu afgambi ku qabsado sidii in adeerkiisii aad baray kale wali waxa way maaragtay dadkan reer mudug la yiraahdo sidoodaba waxa way maaragtay haddaan xoogo yar si kaftano ma ahna waa runo waxay yiraahdaan waxa way maaragtay waa dakano qaba waa reer dakano waa ummad reer wada marka waa nin dakana qaba oo wasaaradda gaashaandhigga isaga ayaa hadda wuxuu u haystaa nin dakana qaba oo iisheeg dadkan koonfurta inay yihiin dad eedaysanayaal dakana ka galay dadka isaga ka soo jeedo iyagoo 22 sano dawli ayagoo ah oo wadankii xoog ku haysto ayaa meeshii laga kiciyay marka dakanana meeshii waa uu jiraayo waxa way maaragtay in hadii laakiin Soomaali maanta qof isha farta aad ka gelin karto ma lahan leeyahay aniga farmaajo ayar meel u fariiso villa Soomaaliya iska seexo ciidan kaale ma jirto shakhsi aad tahay oo ciyaal faranjiteer ahaa waagi horeba waxaan u damqanayna wuxuu yahayba waagi hore ciyaal faranjiteer ahayd meeshan waxa way maartay adeerka waxa way maartay ninkii geeriyooday ku soo diray oo kuursa oo beenbeen ugu soo diray xataa ma dhamaysan lirshaadada xataa waa uu ibsaday marka wuxuu yahay iska yar ninkaas waa one man show iri waa show off kaliya waay marka wuxuu afgambin karana ma lahan laakiin waa uu jeclaan lahaa haddii ay u noqon lahayd in uu maanta ciidanka Soomaaliya xooga dalka Soomaaliya iyo AMISOM haddii ay dadkaas ay u qaban karaan koonfurta oo dhan waa uu jeclaan lahaa inuu qabto xoog ku qabsado oo sidii adeerkiis oo kale 22 sano kale meesha uu joogo laakiin ilaahay ma dhihin laakiin doctor istustuskaaga waxa cadeynaya xildhibaan ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya Allah u naxariistay oo koonfurta ka soo jeedo oo dhintay ayuu tacsiyad u diray boqolaal qofna Hiiraan iyo way ku baabaasan yihiin ilaa iyo beledweyne dadka fuustooyin ayay ku guurayaan biyaha dushooda sida darteed marka ugu horeysa ma arkayse taasi waxay cadeynaysaa istustus inuu sameeynayo farmaajo mar walba هيا لكن هاتن تعسيدي وحوي قف والبا مسلم هدو قف مسلم دينتو waa ku waajib gaal islaam ba waa la isku leeyahay maxaad ka leedahay tacsida xildhibaan duuray ee ku dhintay magaalada Muqdisho inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un marka ugu horeyso waxaan leeyahay xildhibaan Khaliif Abdullaahi Duuray ilaahay ha u naxariisto samir iyo iimaan intii reerka ka geeriyooday iyo Soomaali oo dhan ilaahay ha ka siiyo anagoo dhan waa u tacsiyadeynayna si gaar ahaaneed wali waxaan ugu tacsiyadeynayna ummadda ku abtirsata koonfur galbeedna waxaan leenahay samir iyo iimaan ilaahay idinka siiyo eheladii iyo qaraabadii uu ka baxeen ilaahay samir iyo iimaan ha ka siiyo isagana jannatul firdawsa الله كورابيو طلبات واد الليدهي فرماجو وكتعسيدي الليدهي ويب سايد وكاركي لكن والو يري ما مقل جرتي والو يري قف جورناليستا اما قف ايشك محل هذا لا تلي ايا مقلي ان xildhibaan duuray oo dhintay kaasa meesh soo gali isagoo iska dhigaayo inuu farmaajo yahay oo iska dhigaayo laakiin farmaajo maanta hadii la weydiiyo yaa dhinta hadii la yiraahdo waxa laga yaabaa inuusan garaninba waliba hadii uu yahay hadda reer koonfurba haduu yahay waxa way waa xaajada waa ka fogtahayba ninkaas marka waa loo yiri xildhibaan baa dhintay madaxweynaha ka tacsiyaday waa loo yiri laakiin maanta hadii meesha uu hadda uu fadhiyo haddadaas live uu fadhiyo loogu tago oo yiraahdo ninka dhintay ma taqaana wuxuu dhigi lahaa waxa way maartay ma garanayo saas darteed marka waxa ka badan Soomaalida tacsiyeynaysa ka badan anaga u tacsiyeynayno reer ummadda Soomaaliyeed oo dhanba maadaama nin qaran maadaama waa loo wada tacsiyay xildhibaan Khaliif Abdullaahi Duuray ilaahay u naxariis آمين سمري إيمان إلهي هكسي بلشة الصوماليات قويسي قرابة إيا ما أركسي إنتي وكدنتي وكجيريودي حلبان كاسي الدكتور waxaa jira geeri dabataal ayaa jirta gobol ka baay koonfurta Soomaaliya
duleedka magaalada baydhabo waxaa ku dagaalamay sida wararku ay sheegayaan laba beelood oo walaalo ah af sawd sinji iyo qaraabo iyo diin midab intaba saaxiiba aanu ku kala tagi karin ilaa qiyaamaha 20 qofood ayaa la sheegayaa in ay iyaguna ku geeriyoodeen dadka geeriyooday horta marka ugu horeysa waan u tacsiyadaynaynaa ilaahay inuu u naxariisto dadkii ay ka baxeen ilaahay samir iyo iimaan uu siiyo haddaba dad macnihii colaadaasi casri jaahiliga ah ma arkaysa ka soo cusboonaatay xilli hore loo soconayo hadda maxaad ugu baaqi lahayd maadaama nin aqoon-yahan ah rugcaddaa siyaasi ah tahay aadna looga yaqaano loogana qadariyo guud ahaan geeska afrika gaar ahaan koonfurta soomaaliya wallaahi ustaad ingiriisa waybu aan kolkun afka bedelade maadaama dadka oo dagaalka ku dhexeeyo in dad oo sinji ahaan ama reer ahaan ama kala umad ahaan ha ku jeedan koonfur galbeed maadaama yo ihin laakiin wayba nasiib darre wayla kaliya waybu laba beelood ayaa isku dagaalay gobolka mudug markii la ero wayla array waybu dawladda oo dhan ha u gurmato ha loo gurmado si labadaasi beelood meelo ka dagaalameen sa'olin dhexdhexaadiyo dawladda baaba nahaasaba lama beelood oo waxa way mudug la iska dagaale wasiiraa loo diraa diyaaradaha loo diraa wasiiri lindire diyaarad lindire hana koonfur galbeed iska dagaalan oo isdhamaayahayan oo ha ku jeedan dadkun koonfurta ha ku jeedanna yoo la isdhamaayahayan yoo la isdilahayan dawladna min og horta taas nasiib darro waaye tan lamaad way artay wayba dadka oo meelo iska dagaalahay horta wayba nasiib darre yoo oo beelo diga wayba koonfur galbeed dad walaal waay ehel waay abti iyo aysan inis waay isgorodayno inis abtiri koraan waay lankasta deegaanka usu degaw iyo buuladii usu degawna la kasaa waay marka dhibaatadii oo iyo hamartii bama oga oo hayti abaartii oonkii baaba'i rafaadkii qaxi kaynaantadii walaagasba hilmaamena way dheegi jiray umulo wayba hanuun hilmaan dhowtaya dheegi jiray may reer koonfur galbeed mayo umula hilmaan dhowa dhibaati haddii laha ku baxeen ilaahay raxmada ansheeni ilaahay rooba ansheeni xoolashoo andaagahayan beerashoo faladahayan geedogiya nurowen eeskiyaha bahi agaaradi meeliyoola fadaayi iyo isbaryadayaan salaanfayl iska baryadayaan inis tahniyadeeyaan roobka ilaahay iyo raxmadda ilaahay anshaani iyo kama hadiyaan quraan akhriisadaan oo meel isla fadheedaan oo biigeeka walku dherigi ceela liiska dagaali iyo bii liiska dagaali haddii la erfadi bii liiska dagaaloon meelo ma leh ilaahay nimcisi nimcadiyo ilaahay si intiyo ka shukriyaan way inka baaqane haddii un ana aqoon-yahanadii oo binaanka roogi oo reer koonfur galbeed haddii un ana dagaalka ku dareer duleedka magaalada baydhabo si degdeg in la roojiyo malaaqyada oo iska dayeen in dagaalkaas sidii la roojii lahay iska dayeenna waylana way buah eeda aan mahadsantiin marka baaqi oo in sheeg malaaqyada direen maamulka koonfur galbeed diri oo hay dagaaladaas oo duleedka magaalada baydhabo ku dareeran oo dad walaal iska dirirahayaan in la roojiyo inuun baaqaas oo kale diraan waylana walaalayaalow dadka oo inshaada malaaqida sing dadka oo maamulka sing dooku dhiiga walaagi lishal dili walaagi dhimadan ilaahay aan naxariisada intii dhaawacantii ilaahay caafi inta noolna ay la dilnay walaalkiin waaye ay sinkiin waaye abtigiin waaye ay la isdilnay walaali la ay marka way sinka baaqanahe dagaal ay hal roojiyoy dagaal lan leynoo ka dhimada lan maninka dhaladaw dagaal wiilay kuriila isku dilaana laakiin kuri kale maninka dhaladaw insha Allah way buaha nabad iyo wan iyo in sheeg ad barwaaqo iyo aarun yasin rajeeya walaalayaal marka way sinka baaqane in isan dagaalka roojidan ama la ku shaqeeyo dagaalka sidii la rooji lahay insha Allah nabada naas la nuuga leh peace is life kaasi waxa uu ahaa Dr. Cabdullaahi Ibrahim Xasan Amaandorey oo arrimo badan oo ku saabsan Soomaaliya arrimaheeda sida fatahaadihii gobolka Hiiraan iyo ma arkaysa shabeellooyinka iyo ma arkaysa khayr mas'uulnimada madaxweynaha haatan kursiga ku fadhiya farmaajo ka hadlayay sidoo kalena ma arkaysa iftiiminayay ma arkaysa arrinta ka socota duleedka magaalada Baydhabo ama baaq u dirayay beelaha ku dagaalamay ee walaalaha duleedka magaalada Baydhabo taasoo saameyn ku yeelatay noloshii gobolka Baay qaasatan degmada Baydhabo iyo
doctorka oo tacsiyad u diray isagoo ku hadlaya magaca aqoon-yahanada Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa koonfureed xildhibaan duuray ee ku geeriyooday magaalada Muqdisho ee xarunta dalka Soomaaliya doctore aad ayaad u mahadsan tahay kulanka xiga inta aan ku kulmi doonana eediyada ma hadsantay استاذ آدم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إذا ما الله جنة الفردوس داود يا ولي انتم نحريس تاسك شيء بلا تدك الأرض قال لي الألواب قشين مدحوينها تركيا هل مرة سومالي توصل ممكن استاذ آدم Thank you.
عفرتي